muuqaalkan waxaa duubayso mid ka mid ah kaamirooyinka qarsoon kuwaasi oo falalka marka ay dhacaan kadib laga helo halka ay ka dhaceen iyo sidee u dhaceen. labadan wiil ee dhalinyarada u jeedaan mid ka mid ah dhowr mar ayaa tooriye la gelin doonaa, dabadeedna halkan ayuu ku dhiman doonaa. kan kale marka muxuu sameyn doonaa, maxaana keenay khilaafka ah in labadan wiil ee muuqaalkan laga helay iyagu inay istooreeyaan, dabadeedna mid ka mid ah halka uu ku geeriyoodo. waxaa rabaa intaan gudaha u sii gelin oo aan ku sharaxin muuqaalkan, marka hore soo dhawo, maalin wanaagsan. muuqaalkan qabo, saaxiibadaada kale la wadaag si sheekadeena ay u gaarta meel fog. muuqaalada noocan oo kalena dhalinyarada Soomaaliyeed laga wacyi-geliyo. waxaan dhihi karnaa waan ciwaan ugu sameyn karnaa quuradii sababtay geerida. waa maxay marka quurada sababi karto geerida? quuro maxaa u taqaanaa? dabcan markuu qofka hurdaayo, isagoo hurdaa kadibna ay neef ka soo baxayso, qof kalena uu la jiifo, aad ayuu u dhibsan karaa qofka kale ee la jiifa. balse tani waxay noqonaysaa sheekadan quuradii sababtay geerida. labadan wiil ee dhalinyarada u jeedaan tooreedii isla dhacayo, sii dhacdhacayo midkan kale. wiilka dhalinyarada ee sii dhacdhacayo sawirkiisa waa kana, waxaa lagu magacaabaa Guuleed. kan wax dili doono ee isagana sii jeeda aad u jeedaan waxaa lagu magacaabaa Cabdisamed. maxaa dhacay marka? maxaana keenay in istooreeyaanba, tooreyna nafta iskaga qaadaan? Cabdisamed iyo Guuleed iyo wiil kale oo dhalinyaro ah ayaa hal qol wada degnaa. iyagoo qolkaa wada degan, habeenkii wada seexdo, saddexdoodaba qolka u wada kirisnaa, mid kastaba sariirtaas kirada lacagteedu u baxsanayay. habeenada ka mid ah waxaa aad u quuriyo kan wax dili doono. kan la dili doono waa nin dhalinyaro ah, iska shaqaysto. kan kalena waa nin isaga xitaa dhalinyaro ah, laakiin marka si loo eego waxaa ka aqyaarsan kan la dili doono, waana kan ficilka qaldan sameyn doona. haddana habeenada ka mid ah iyagoo wada jiifo saddexdooda, kan la dili doono iyo kan wax dili doono iyo mid kaleba oo qolka wada degan, waxaa aad u quurinayo kan wax dilaayo oo lagu magacaabo Cabdisamed. marka aad u quuriyey dabadeed waxay sameeyeen labadii wiil ee kale, mid ka mid ah kan la dili doono oo lagu magacaabo Guuleed ayaa intuu soo qabsaday janzigar ama bahalka lagu daara dabka yar ee afka hore ka bixinayo, leerkoo dansan gacanta ugu qabtay. maxaa dhacay kadib? mugdi ay ahayd, quuradiisii ayay dhibsadeen, waxay ku qabteen janzigar, way u tashteen, dabadeedna way ka seexdeen. ninkii dhalinyarada ahaa waa uu qeyliyey, waa uu gubtay. mar wuxuu u maleynaa inuu isaga soo qarway, mar wuxuu u maleynaa inuu isaga isdhibaateeyey, laakiin wuxuu ogaaday markii dambe labadan qof ee qolka la seexatay mid ka mid ah inuu jantaha ku qabtay. maxaa dhacay marka? way isdagaaleen, way doodeen, way murmeen, arrintoodii gartigaa la galay. kii kale ayaa sheegay marka in ninkan Guuleed lagu magacaabo ee dhiman doono in janzigar uu ku qabtay wiilkan kale ee lagu magacaabo Cabdisamed. maxaa dhacay marka? gartoodii waa la galay. markii garta la galay ee la dhameeyey, waxaa lagu xukumay lacag dhan $50. ninkii dhalinyarada ee dhiman doona ee Guuleed sawirkan ku muuqanaya markaa wuxuu yiri, hadda waxaa gacanteeda ku jirto lacag $30 ah, 20 kalena dib ayaan ka bixin doonaa. qaladka wuu iga dhacay, waa galay, waana qaatay wixii liigu ganaaxay. wuxuu bixiyey lacag dhan $30. $20 wuxuu sheegay inuu bixin doono. ninkii kale ee dhalinyarada ahaa ee dhibanaha ahaa ee la gubay ee haddana noqon doona gacan gudhiglaha, markii saaxiibadii uu u tagay waxaa lagu dhahay, adigoo reer hebela, reer iyo hebel iyo reer hebel inaa ka dhalatin aa og tahay, sidee u qaadatay lacag dhan $50? waa uu xanaaqay. marka dib ayuu usoo laabtay, toori ayuu soo qaatay, dabadeed wuxuu soo raadiyey ninkii lacagta dhiibay ee isagana dhibaateeyey. waa kuwaan marka muuqaalka way iska hor imaanayaan. markay iska hor imaadeen, wax yaree doodeen. kan la dili doono wuxuu la soo baxay toorey, kan wax dili doonane wayba u diyaarsaneen sidaa muuqaalka ugu jeedid. dabadeedna waa taa halkan wuu sii gebagabayaa, way ku dhacaysaa dhowr xabo. kaamirada kale waxaa waaye mid isagoo tooreydii si aan caadiyan ugu dhacayso. muuqaalkaas halkan uma isticmaali karo, linkigiisa telegramka ayaa idiin geyn doonaa. waa isweydiinaya marka sheekadan halkee ka dhacday, magaalada Muqdisho miya ama meel kale? intee waa taa wax ugu muhiimsan aad doonaysid, waa kuu sheegi doonaa. marka muuqaalkan waxaa liiga soo diray Koonfur Afrika. waa meel Soomaali badan ay ku nooshahay, magaalooyinkeeda waaweyn. sheekadanna waxay ka dhacday Koonfur Afrika, waana wax u baahan in bulshadeena laga wacyigeliyo, loo iftiimiyo. dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha joogtay isku dhibaateynaysan
waa in iyaga qudhooda la wacyigeliyo. ninkan guuleedana hadda halkan ayuu ku dhintay. cabdisamad hadda waxaa la sheegay in lala baxsaday mid ka mid ah tuulooyinka fogfog la geeyey, halkaana la doonayo in laga sii bixiyo. halkan ayaan kugu koobaa marka sheekadeeda. muuqaalkan qabo la wadaag saaxiibadaada. sheekooyinka noocan oo kale ah marka waa isweydiinaysaa maxay u soo laalaabtaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee joogta Koonfur Afrika, maxay iyagu gacmahooda iskugu dilaan, maxayna isku baabi'iyaan. hadda wiilkan dhalinyarada ah Guuleed waa uu dhintay, laakiin marka loo fiiriyo qaladka labadooda ka dhexdhacay isaga ayaa qaldanaa, maadaama laakiin gartiisii uu qaatay uu sheegay qaladkan inuu ka dhacay, bixiyeyna wixii lagu ganaaxay. ninkan kale ee Cabdisamad isagana wuxuu ku qaldanaa inuu qaato go'aanka ah inuu nafta dhan u mootiyo. maxaa ka sii xun marka labadooda ka baxsan? waxaa ka baxsan saaxiibada Cabdisamad qabiil ahaan iyo qoys ahaanba ay isxigaan. waxay ka dhaadhiciyeen wiilka dhalinyarada ee saaxiibkooda ee la dulmiyey ee haddana laga garbaxay ee lacagta la siiyey. waxay u sheegeen isaga oo reer hebela inuusan u qalmin qaadashada lacag dhan $50 oo keliya, laakiin ay u sheegeen inuu aarsado inay muhiim tahay. aarsashadii uu u socdayna waxay sabab u noqotay in Guuleed nafta uu waayo. marka sheekada waxaa ku ciyaaray waa ragga Cabdisamad saaxiibadiisa. mararka qaar markay saaxiibo xun ala saaxiibtidna waxay ku horseedi karaan noloshaada oo dhan wax baabi'in karo. kuwa wanaagsan markaa la saaxiibtidna waxay sabab u noqon karaan mustaqbalka iyo noloshaada oo dhan inuu wanaag ku dhammaado. dhanka fiican iyo dhanka wanaagsanna noloshaada oo dhan ay ku dhammaato. waa sheekooyinka arabna marka inaan bulshadeena ka wacyigelinno, waa sheekooyinka arabno inaan gaarsiino meel fog si dadku ay u yaraadaan falalka noocan oo kale ay dhacayo. waa isweydiinaya marka toorey in laba wiil oo dhalinyaro ah isla dhacaan nafti isku mootiyaan xanuunka ka dambeyn karo iyo aarsashada halkan geerida kale ee sababi karto dhibaatadii dhacday. hadda waxaa la doonayaa in la xalliyo. qoysaska ayaa isku imaanayo, gartooda ayaa la galaa. ninkan dhalinyarada waxaa la rajeynayaa inay diyo ka bixiyaan si dagaalka iyo qof kale halkan uusan ugu geeriyoonin. waxaan rajeynayaa inaa halkan soo gaartay, si nabada muuqaalkan aa ku daawatay, kana mid noqo saaxiibadeeda ku xiran YouTube-ka. waxaan rabnaa inaan YouTube-ka muuqaalo badan halkan soo gelino, sheekooyinkeena halkan aan sii kobcino, wax badan oo isbedelna janaalkeena ku sameyno. laakiin waa in adiga nagala qayb qaadataa, muuqaalkeenana aad gaarsiisaa meel fog. sheegay in lala baxsaday mid ka mid ah tuulooyinka fogfog la geeyey, halkaana la doonayo in laga sii bixiyo. halkan ayaan kugu koobaa marka sheekadeeda. muuqaalkan qabo la wadaag saaxiibadaada. sheekooyinka noocan oo kale ah marka waa isweydiinaysaa maxay u soo laalaabtaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee joogta Koonfur Afrika, maxay iyagu gacmahooda iskugu dilaan, maxayna isku baabi'iyaan. hadda wiilkan dhalinyarada ah Guuleed waa uu dhintay, laakiin marka loo fiiriyo qaladka labadooda ka dhexdhacay isaga ayaa qaldanaa, maadaama laakiin gartiisii uu qaatay uu sheegay qaladkan inuu ka dhacay, bixiyeyna wixii lagu ganaaxay. ninkan kale ee Cabdisamad isagana wuxuu ku qaldanaa inuu qaato go'aanka ah inuu nafta dhan u mootiyo. maxaa ka sii xun marka labadooda ka baxsan? waxaa ka baxsan saaxiibada Cabdisamad qabiil ahaan iyo qoys ahaanba ay isxigaan. waxay ka dhaadhiciyeen wiilka dhalinyarada ee saaxiibkooda ee la dulmiyey ee haddana laga garbaxay ee lacagta la siiyey. waxay u sheegeen isaga oo reer hebela inuusan u qalmin qaadashada lacag dhan $50 oo keliya, laakiin ay u sheegeen inuu aarsado inay muhiim tahay. aarsashadii uu u socdayna waxay sabab u noqotay in Guuleed nafta uu waayo. marka sheekada waxaa ku ciyaaray waa ragga Cabdisamad saaxiibadiisa. mararka qaar markay saaxiibo xun ala saaxiibtidna waxay ku horseedi karaan noloshaada oo dhan wax baabi'in karo. kuwa wanaagsan markaa la saaxiibtidna waxay sabab u noqon karaan mustaqbalka iyo noloshaada oo dhan inuu wanaag ku dhammaado. dhanka fiican iyo dhanka wanaagsanna noloshaada oo dhan ay ku dhammaato. waa sheekooyinka arabna marka inaan bulshadeena ka wacyigelinno, waa sheekooyinka arabno inaan gaarsiino meel fog si dadku ay u yaraadaan falalka noocan oo kale ay dhacayo. waa isweydiinaya marka toorey in laba wiil oo dhalinyaro ah isla dhacaan nafti isku mootiyaan xanuunka ka dambeyn karo iyo aarsashada halkan geerida kale ee sababi karto dhibaatadii dhacday. hadda waxaa la doonayaa in la xalliyo. qoysaska ayaa isku imaanayo, gartooda ayaa la galaa. ninkan dhalinyarada waxaa la rajeynayaa inay diyo ka bixiyaan si dagaalka iyo qof kale halkan uusan ugu geeriyoonin. waxaan rajeynayaa inaa halkan soo gaartay, si nabada muuqaalkan aa ku daawatay,
kana mid noqo saaxiibadeeda ku xiran youtube-ka. waxaan rabnaa inaan youtube-ka muuqaalo badan halkan soo gelino, sheekooyinkeena halkan aan sii kubcino, wax badan oo isbedelna janaalkeena ku sameyno. laakiin waa in adiga nagala qayb qaadataa, muuqaalkeenana aad gaarsiisaa meel fog. mahadsanideen.